waqtigi wayna soo galay galada sugayni waqtigi wayna soo galay guushiya barwaaqada bugayga igu simayo kama geeriyone guushiya barwaaqada bugayga igu simayo kama geeriyonine bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno sababta dowladda Kenya ay kaga baaqsatay dacwadda badda ee kala dhexeysa Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa isaga baxday dhageysiga kiiska muranka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen ila ka tirsan xafiiska heer ilaaliyaasha dalka Kenya. sida ay warbaahinta Kenya ku warantay dowladda Kenya ayaa sabab uga dhigtay arrintan inay ka cabanayso in maxkamadda aysan si xaq ah ula dhaqmin Kenya, in maxkamadda aysan dooneynin in ay tixgeliso codsiga Kenya oo ah in dib loo dhigo dhageysiga kiiska iyadoo sabab looga dhigayo viruska coronavirus. Heer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya ayaa go'aanka dowladda Kenya waxa uu ku sheegay in maxkamadda ay u gudbiyeen isbuucii la soo dhaafay xilli maalmaha ay ka dhinayd in dib loo dhageysto maxkamadda isla markaana Soomaaliya ay dacwadeeda soo gudbiso. Kenya waxa ay rajaynaysay in maxkamadda ku wargeliso in aysan ka qaybgalaynin dhageysiga kiiska ee bilaabanaya 15 bishan Maaj. waxaa sidaas lagu sheegay warqadda uu soo saaray heer ilaaliyaha guud ee waddanka Kenya isla markaana uu u diray maxkamadda ICJ. Talaabadan oo lama filaan ku noqotay ayaa imaanaysa iyada oo maalinta burrito ah la dhageysan doono maxkamadda isla markaana Soomaaliya iyo Kenya heer ilaaliyaashooda ay soo jeedin doonaan heerarka badda ee labada waddan. waxaa sidoo kale go'aanka ku soo beegmaya xilli uu aad u xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal. waxyaabaha kale oo ay Kenya ka cabanayso qoraalka ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda ICJ ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inay ka qaybgalka dhageysiga kiiska ee garsoore Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo dhalashadiisu Soomaali tahay ay tahay mid shaki gelinaysa kalsoonida lagu qabi karo maxkamadda in ay dhexdhexaad noqonayso. Ilaaliyaha guud ee waddanka Kenya ayaa ku dooday in kiiska ka dhanka ah Kenya oo inta badan gudihiisu yahay isla markaana Soomaaliya ay dooreyso bad aysan xaq u lahayn. waxaa sidoo kale ilaaliyaha guud ee waddanka Kenya uu sheegay in madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle sababtii uu ugu aamusay markii ay Soomaaliya ay ka carootay guddigii xaqiiqa raadinta ee loo saaray dacwadda badda ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya. waxaana uu sheegay Kenya waxa ay ka cabanaysaa in dhageysiga loo qabto qaab maqal iyo muuqaal ah, taas oo uu sheegay in aysan habboonayn in kiisadan u culus una muhiimsan lagu qaado qaab maqal iyo muuqaal ah. Ilaaliyaha guud ee dalka Kenya ayaa sidoo kale qoraalka uu maxkamadda u gudbiyay ku sheegay in Kenya ay qareenno cusub qoratay isla markaana kulamo aysan la yeelan maadaama uu jiro xanuunka safmarka ah ee COVID-19. dowladda Kenya ayaa shaqada ka ciirisay qareennadii ugu qaybgalayay dhageysiga sanadkii 2019 waxa ayna dhaleeshay tayada qaabkii dacwadooda ay u soo bandhigeen. maxkamadda ayaa inta badan go'aamo ka gaari doonta fulintooda isla markaana laga sugayaa go'aan inay ka soo saarto warqadani ka soo baxday waddanka Kenya.